Soomaaliyeed oo dhan dadkeena meel joogaanba kacaankii labaad ee dalkeena ka dhacay waxaa madax u ahaa Maxamed Cabdulla Xasan سيد محمد عبد الله حسن وحو أها نينكي وهوري قالada la dagaalamay naftiis ugu ahaa oo inuu Soomaali xornimo u socosho ayuu doonay ujeedadiisu waxay ahayd gobonimo doon meeriska dhulku wuxuu sameeyaa laba wareeg mid uu ku sameeyo orbidka yaa kala arday kala intaana doonayna marka adiga